balse aan wax badan uga ogaano xagga shirkaasi aan caadiga ahayn ee urur goboleedka IGAD ee soo gabagaboobay war murtiyeedkii ka soo baxay iyo waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarkii hore ee IGAD dhex mari jiray dalalka ku midaysan waxaa qadka Skype-ka magaalada London ee dalka Ingiriiska toos ugu jira Maxamed Balde oo ah falanqeeye ka faalooda siyaasadda Soomaaliya. Maxamed, haddii aad maqasho marka hore soo dhawow, marka xiga shirkan muxuu kaga duwanaa shirarkii hore madaxda IGAD ay isugu imaan jireen? bismillahi raxmaani raxiim. waa dhawahay su'aal aad iyo aad baa u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashuba. intaas kadib shirka 38aad ee IGAD ka dhacay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti wuxuu kaga duwanaa shirarkii horey u dhici jiray marxaladda uu ku soo aaday oo runtii ah mid xasaasi ah gobolka oo dhan oo ay ka jirto xasilooni darro siyaasadeed. tusaale ahaan dalka Itoobiya oo maaragtay gobolka Tigray oo dagaal ka dhacay dowladdu ay gacanta ku dhigtay caasimadda Mekelle iyo maaragtay stateski oo dhan kadibna howlgallo la xiriira baaritaan iyo waxyaabo ay ku heleen iyo howlo noocaas ay ka jireen. waxa uu ku soo aaday xiisado weli ka jira South Sudan oo aan yacni dhammaan xiisadahaasu waxay soo bilowdeen markii ay ka go'een waddanka weyn ee maaragtay Sudan. intii ka dambeysay marna kama istaagin qulqulatooyin guurina waa ay jireen. sidaasoo kale shirku wuxuu ku soo aaday diplomatic tension u dhexeeya maaragtay Soomaaliya iyo Kenya oo dhinacyo badan taabanaya. waa dhegeysanaya wasiirka arrimaha dibadda khudbadiisii ku saabsanayd shirkaas iyo waxyaabihii looga wada hadlay. waxa oo kale shirkaasi ku soo aaday hadda gobolkii oo dhan oo dhinacna uu ka socdo waxa la yiraahdo integration isdhexgal dhaqaale iyo maaragtay somehow in si loo midoobo. dhinaca kalena uu jiraan tensions cusub oo aan horey u jirin sida midda Kenya iyo Soomaaliya oo kale. sida aynu ognahay Kenya weli kama mid noqon wadamada IGAD khilaafyadooda oo waxay ahayd waddan politically maaragtay stable ah iyaduna ah wadamada kale oo jaarka aan xiriir wanaagsan la leh. arrintan marka waxay kolley salka ku haysaa waa ka hadli doonaa arrimihii badda Soomaaliya iyo waxyaabahaas. marka shirkaasu marxalad wuxuu ku soo aaday runtii xasaasi ah Soomaaliyana ay doorasho galayso. markii aad aragtay shirka war murtiyeedka ka soo baxay shirka iyo qaabka loo dhaqan gelin karo markaan u nimaadno Soomaaliya iyo Kenya markaan dib u dhigano maxaad isleedahay waa lagu dhaqan gelin karayaa Tigreega iyo dagaaladii Itoobiya dhexdeeda ka soconayay iyo arrimaha qaxootiga oo laftirkooda dadkii qaxay lagu faahfaahiyay? wallahi communique shirku dhinacyo badan ayuu taabanayay. wadamo badan buu maaragtay si gaar ah uga hadlayay. Itoobiya oo kale, South Sudan, Soomaaliya iyo electionskeeda. haddaynu marka arrinta Sudan waxaan ka wadaa Itoobiya aynu eegno haddee dagaal baa dhacay. dagaal hadduu dhaco kadib wuxuu u baahan yahay stabilization baa loo baahan yahay. militarigii iyo maaragtay conflictskii in nabad lagu bedelo, in dadkii maaragtay maleeshiyaadka oo baxay dib loo soo celiyo, in qaxootigii la soo celiyo oo dib u dejin loo sameeyo, in meelihii burburay maaragtay dib u dhis laga sameeyo, in ay helaan kaalmo caalami ah iyo kuwa internal oo Itoobiya dhexdeeda ay maaragtay u fidinayso. sida aan ognahay way bilowdeen UN-ka iyo maaragtay hay'ado kale internationalaba waa ay ka howlgaleen. laakiin dhinaca maadaama ay joogtay dowladda Itoobiya iyadu matalasay waddanka Itoobiya sida ay u dhigato waxaa dhici karta inaysan arrimuhu ahaanin. waxaa dhici karta xasiloonida la filayo iyo sida iswaqtiga ah in dagaalkaasi u dhammaado inaysan noqon. waxaa dhici karta gruubkii kale oo maaragtay laga adkaaday meesha laga sifeeyey inaanay intaas ku hakan ay abaabul kala galaan waayo madaxdooda gacanta laguma dhigin. waxa uu qarsoon iyo meelaha ay tegi doonaan iyo regionku moogtay wax historical waxa weeye region hot weeye hot aad u kulul weeye. marka
lama qiyaasi karo sida ay u fududahay communicable lagu yirina waxaa dhici karta inay arrintaas ka adkaato oo ay muddo iyo election ka dhacay Ethiopia iyo dowladda dambe oo timaada iyo process maaragtay dib u heshiisiin oo socda ay qaadata ay u badan goboleedkan igaad dalalka ku midaysan iyo taariikhdiisa bal sharaxaad naga si dad badan oo aan aqoonin ay wax badan uga ogaadaan igaad horta waxaa la aasaasay 1986 markaas waxaa la oran jiray intergovernmental authority on drugs and development oo abaarihii dhacay oo midii Ethiopia iyo waxyaabihii laga bartay ee salka ku haysay marka abaaraha iyo horumarinta ayay ahayd mar kale ayaa la iskugu tagay wadanka Djibouti oo maaragtay xarun u ah waxaana laga dhigay labadii diiba mid la gooyay oo development kaliya ayaa lagu soo reebay igaad waxaa dhisay 6 wadan oo 3 kamid ah ay Horn of Africa tahay waa Djibouti, Somalia, Ethiopia, Sudan, Kenya iyo Uganda. 6daas ay ahaayeen 2 wadan oo waxa jira gadaal kaga soo biiray oo ka dilaacay 2 wadan oo kamid ah boundarieski oo sida Eritrea oo Ethiopia ka go'day iyo South Sudan oo Sudan ka go'day marka 8 ayay sida ku yihiin igad waa urur goboleed ka shaqeeya xiriirka iyo maxaan ku iraahdaa horumarinta 8 state waxay ka mid tahay igad 8 urur oo kale oo ka jira maaragtay region ka jira sida EAC oo la yiraahdo ECOWAS iyo UMA iyo COMESA iyo 8daas urur maaragtay urur ka mid ah weeye marka runtii waa urur saameyn ku leh dowladaha isku midoobay iyo regionka oo dhan inkastoo press release-ga ama warmurtiyeedka shirka ka soo baxay aan wax faahfaahina looga soo dhigin arrimaha isqabsiga xagga diblomaasiyadda Kenya iyo Soomaaliya haddana wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay igad dhexdeeda in ay xalin doonto maxay arrintaasi xalinta ah noqon doontaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sheegay inaysan case-koodii presenting garayn oo maaragtay inaysan gudbin oo soo bandhigin wuxuuna sheegay inay hayaan evidence iyo waxyaabo badan oo maaragtay Kenya kaga cabanayaan mid kamid ah ayuu taabtay oo ah shabad in laga soo abaabulay xadka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya dhanka kale waana ka warhaynaa oo nin wasiirka aan jiray Jubaland oo ka baxsaday Muqdisho oo abaabulkaas ku jiro oo qayb ka yahay mar haddii case Soomaaliya aysan gudbin wasiirkuna uu ka gaabsaday waxaad moodaa halkaasi Soomaaliya ay rabtay inaan aysan wax u dhicin 2 arrimood baan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo oo marka koowaad shirkan horta ma ahayn mid Soomaali kaliya quseeya ama Soomaaliya iyo Kenya quseeya waxa uu ahaa shir quseeya arrimaha gobolka ama igad saameynta ku leh oo dhan arrinta labaad waxa weeye igad sidii loo dhisayba waxa dominant ahaa oo saameyn xoog leh ku lahaa wadamada Ethiopia iyo Kenya sababaha ay Eritrea uga baxday waxay ka mid ahayd saameyntaas xoog badan oo ay ku lahaayeen marka u fiirsatay qaab dhismeedka ururka iyo sida loo qaybsado awoodaha iyo secretariatka marka laga reebo Djibouti oo headquarterska u ah ama xarunta u ah maaragtay fadhiga u ah waxaad moodaa inaysan ku lahayn maxamed haddii la dhaqan geliyo wada hadalladaasi igad dhexdeeda iyo sidoo kaleeto madaxdii shirka igad ka qayb gashay si gaar ay isaga arkeen oo la isku horfadhiisiyay labada madaxweyne xiisadu haatan dhex taalo Soomaaliya iyo Kenya maxay noqon doontaa in arrintan ilaa intee leeg ay sii jiitami kartaa maxay saxalku noqon doonaa waxaa taagan xiisado xuduudii Kenya iyo Soomaaliya ka dhex taagan arrimada diblomaasiyadda kala xiran maxay arrintan noqonaysaa baad isleedahay hagaag waa su'aal aad u wanaagsan conflictiga Kenya iyo Soomaaliya ma ahan mid maanta bilowday ama dowladda iminka hadda waqtigeeda si dhamaanaya la kowsaday muddo ayuu soo jiray wuxuuna salka ku hayaa arrinta badda Soomaaliya iyo muranka ka taagan oo hadda kiiskaas u yaallo maxkamadda caalamiga ee adduunka
maxkamada qaybta qaramada midoobay maxkamadeeda waxaan isleeyahay arrintan way gaari doontaa ilaa doorashada Soomaaliya lagu kala baxo waxaana moodaa leverage ama advantage inay u arkayso Kenya dowladda oo waqti kasii dhamaanayo inay hadda u isticmaasho pressure-ka noocaasa si walba oo la isku arko ama de-escalation la sameeyo oo xataa haddii diblomaasiyaddii maaragtay la gooyey channelkii diblomaasiyadda dib loo soo celiyo waxaan isleeyahay ku dhammaan mayso arrinta maaragtay maanta sida ay tahay waxaanan isleeyahay waxay aad ula xiriirtaa doorashada Soomaaliya oo aan aaminsanahay Kenya inay saameyn xoog leh inay ku yeelato inay rabto waan ognahay xiriirada ka socda iyo murashaxiinta iyo sida ay dadka qaarkood xiriir ula leedahay wararka qaar xataa waxay sheegayaan aan helayno safarkii Musabbix uu ku tagay Nairobi inay si uun ula xiriirtay doorashada iyo codadka ka imaanaya gobolada waqooyi marka arrintan anigu ismaliyay dhaqsay u dhamaanaysaa waxaan isleeyahay doorashada way dhaafi doontaa waxaa tahay siyaasadda Soomaaliya wax badan u dhuunduleela doorashada markii aan laftirkeeda u nimaadno Soomaaliya waa tii kol horeeto doodii ugu badneed ay ahayd doorashada waqtigeeda inay ku dhacdo heshiiskii magaalada Muqdisho maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxa ka soo baxay in la iclaamiyo gudiyada la dhiso doorashadana waqti astaysan loo diyaariyo haatan dib u dhacyo maamul goboleedyada qaar in ay gudiyada soo diyaarin iyo doodo ka dhashay ayaa jira oo ra'iisul wasaaruhu xalkooda safaro ugu galay Garowe iyo meelo kale haatan wali la daba taagan yahay marka arrintaasi dib u dhac doorashada waqtigeeda in ay ka gadaal marta ma keeni kartaa baad isleedahay aad iyo aad way u muuqataa markaad fiirisid yani hannaanka doorashadu sida uu noqon karo processka inta uu qaadan karo xildhibaanada senatorska maaragtay timelines markii hore loogu talagalay doorashadu inay waqtigeed ka dhacayso dib uga dhacayso way iska caddahay waana arrin runtii khatarteeda leh waddankan waa waddan dimuqraadi ah doorasho waa inay ka dhacdaa 4 sano mar dowladdu saan la socono waxay aad u riixaysay doorasho qof iyo coda which aysan u muuqan dee markii horena suurtagal inay ahayd oo adkaan lahayd haatanna ay lagaba gudbay oo loo wareegay waxa la yidhaahdo doorashada dadban marka 17kii Sebtembar shirkii la iskugu tagay Muqdisho oo lagu finalize gareynayay shirarkii ka dhacay Dhuusamareeb waxay ahayd in gudiyadii hagi lahaa hannaanka doorashada la magacaabo 3 gudi oo maaragtay la kabiyo kala duwanaa waa la qaybsaday shaqadaas dowladda federaalkuna qayb ayay lahayd dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkuna mid walba maaragtay saamiga qayb ay ku lahayd waxaan ognahay oo aan weli soo gudbin waa Puntland iyo Jubaland laba issue ayaa jira oo midna ay tahay arrinta gedo oo muran maaragtay ka taagan yahay midda kalena ay tahay xubnaha dowladda soo magacawday oo aad moodid isteedyo ka oo ayaguba aan loo arag wadadii saxda ah inay mareen inay iyagu eedaynayaan tan anigu marka dambe macno badan ma siinayo oo dowladdu xaq bay u leedahay maadaama ay criteria-yadii raacday inay soo magacawdo gudiyada ayada arrinta gedo laakiin waxay u baahan tahay si tanaasula in lagu dhameeyo Soomaaliya saacadan dagaal iyo sido ma geli karto doorashadii baa la joogaa cod iyo dimuqraadiyad in maaragtay lagu kala baxo hannaanka doorashadana uu noqdo mid hufan oo maaragtay la iska wada dhexarko